ciidanka badbaadada qaran oo isu diyaarinaya inay magaalada ka baxaan kadib markii ay waajibkooda guteen. waa maalin roob ninka macalin aadan ya ya ninkan ma afayeenka iyo xariirad iyo waay waa fahmay. asalaam calaykum baada saxaafadda aye conferenkiina maanta waa okay soo maa ha waa kan ciidamada min Marino ilaa Sanca is haystaan. halkan waa jeer wax buudhan waa ciidanka xoogga dalka ciidanka badbaadada qaran ee dalka badbaadiyey khatartii inqilaabka sharciyadda ee ka badbaadiyey. kan waa qoryaha liidka diyaaradaha waa arkaysaan waa halkan waa isgoyska Jarwac Buudhan. waxaan u maleynayaa cid dambe oo isku dayda inay sharciyadda afduubto iyo dowladnimada ay inqilaabto in aysan jiri doonin maanta kadib insha Allah. ciidanka xoogga dalka ciidanka badbaadada qaran ee qaranka badbaadiya. asalaam calaykum wabarkeegi hay wabar socdaal haye maxay kula tahay maanta waxay la tahay maanta in la guuleystay labada sano la celiyay ilaahay mahadis waa wixii dhammaan loo dagaalamay intaas ay ahayd halganka muddada dheer aad ku jirtay waa hor aad bilowday waxaa muuqata maanta inuu miro dhalay soo maaha okay ay soo dhaw ciidamada dawaa waa la bixinaa asalaam calaykum fiicantiin waalaislaam ay tali cali xubay maanta maxaad dareemaysaa ما شاء الله فرحت ya قول وقول ان شاء الله ay insha Allah soo dhaw aye waa fari ka muuqadno daba iyo dacal ayay is haystaan ciidamada badbaado qaran. waa magaaladii iyo dalkii oo xor ah oo sharciyadda ay shaqaynayso iyadoo la fulinayo heshiiskii la gaaray. asalaam calaykum way fiicantiin alxamdulilah. aye maanta maxaad dareemaysiin aad iyo aad waa ku mahadsantihiin inaad dalka xorayseen oo sharciyadda ilaaliseen oo dowladnimada ay ilaaliseen oo inqilaabka diideen iyo xukun boobka aad oo mahadsantihiin. waa kan ciidanka badbaado qaran asalaam calaykum haye maanta maxaad dareemaysiin aad iyo aad waa ku mahadsantihiin inaad dalka xorayseen. waa ku gawaarida waaweyn
marina kasoo bilaabay maanta waa maalin weyn sidaad arkaysaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee badbaado qaran waajibkooda si qurux badan ay u guteen waa ay diideen in xukun boob iyo dawladnimada la burburiyo waa dawladdu waa tana dawlad kale ma jirto dawladdu waa tan dawladdu waa tii sharciyadda ilaalisa waa tii dastuurka ilaalisa iyo wixii lagu heshiiyey dawlad ma aha kuwa intay isku soo xareeyaan qol dhahay 2 sano ku darsanay oo xukunku inay boobaan rabaan iyagoo dalka waxba u qabanaynin dawladnimadu waa sharciga oo la ilaaliyo waa ciidanka badbaado qaran waa dalka oo la ilaaliyo dawladnimada oo la ilaaliyo kuwaas gawaarida gaashaaban ee ciidanka xoogga dalka badbaado qaran sorry ciidanka dalka xore waa ciidankan badbaado qaran waa kuwan ciidamadii sharciyadda soo celiyay diiday dalka in la burburiyo la geliyo xukunka litalis ah sharciyadda ilaaliyay una taagan inay ilaaliyaan soona afjaray intii hunguri ka hayay in dalka la burburiyo oo xaaraan iyo xoog lagu haysto iyaga ayaa diiday waa war socdaal halkan ayuu socdaa isagana